kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka waxaana kamid ah Sancho ayaa cadeeyay inuu Chelsea taageero weyn u yahay xilli ay doonayso Manchester United. ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Sancho ayaa guud ahaanba xaqiijiyay inuu taageero muhiim ah u yahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea isagoona sheegay inta uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu aad u xiiseyn jiray yaraantiisaba kooxda ku ciyaarta gigada Stamford Bridge ee Chelsea. لاعبكان جادون سانشو oo kamid ah xidigaha waqtigan xaadirka sida weyn kaga dhax muuqanaya horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany ayaana si gaar ah loo la xiriirinayaa briibi ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kooxdani Red Devils ayaana gabi ahaanba cadeynaysa in muhiimadeedu ay tahay in ciyaaryahankaasi u dhashay wadankaasi England ay dib ugu soo celin doonaan Premier League xilli shakhsiyan لاعبkaasi Sancho guud ahaanba uu xusayo inuu diyaar u yahay kulaabashada horyaalka wadankaasi Ingiriiska. 22 jirkani ayaana hadda la xusayaa in kooxda kubadda cagta Manchester United ay doonayso in bangiyadeeda u jabiyaan si لاعبkaasi Sancho ay kaga dhabayaan riyada ku aadan لاعبkaasiba in lagu dhaxarko stadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United. Tobra kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaana markaa xusaya muhiimadiisu in ay tahay inuu ku soo guuleysto saxiixa ciyaaryahankaasi iyo qorshaha xiga dhowrka ciyaartooy ee u diiwaan gashan kooxda kubadda cagta Manchester United. shakhsiyan لاعبkan da'da yar ee Jadon Sancho ayaana markaa xusaya kaliya in uu sugi lahaa dalab markaa ku aadan xidiga kooxda kubadda cagta ee Chelsea. aragti walba waxaa la xusayaa in لاعبkani hadda uu qarka u saaran yahay guud ahaanba inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo maalin ka hor لاعبkani heshiis shakhsiyadba uu la gaaray kooxda ku ciyaartay stadiyaha Old Trafford ee Manchester United. Wijnaldum ayaa sharaxaya heshiiska ay kula soo wareegtay PSG kadib markii ay si xooggan lala xiriirinaya Barca. Jorginho Wijnaldum ayaa sharaxaad ka bixiyay go'aankiisii ugu biiray Paris Saint-Germain kadib bilooyin uu xiriir xooggan la lahaa kooxda La Liga ka dhisan ee Barcelona. PSG ayaa si rasmi ah uga dhawaaqday saxiixa Wijnaldum Khamiistii. Barcelona ayaa markii hore lagu tilmaamay inay ugu cadcadahay inay Wijnaldum kula soo wareegto si xor ah, laakiin wuxuu ugu dambeyntii go'aansaday inuu bilaabo markan xigta ee mustaqbalkiisa ciyaareed isagoo u sababeeyay Mauricio Pochettino inuu yahay mid saameyn weyn. Gundogan ayaa xiiseynaya ku biirista kooxda Barcelona. لاعبka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester City Ilkay Gundogan ayaana guud ahaanba xusay inuu aad u xiiseynayo ku biirista kooxda Barcelona ee ka dhisan horyaalka La Liga wadankaasi Isbaanishka kadib markii لاعبkani uu sheegay inuu diyaar u yahay ka dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City. Ilkay Gundogan ayaana markaa sheegay in la soo gaaray waqtigii guud ahaanba uu macsalaameyn lahaa kooxdiisa Manchester City. kaliya لاعبkani wuxuu yiri hadda waxaan ku qanacsanahay inaan baaqi ku sii noqdo kooxda Manchester United laakiin waxaan cadeynayaa inaan ahay xidig mar walba ku faraxsan in uu ku biiro mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ilkay Gundogan ayaa yiri muhiimadeedu waxa ay tahay inaan ka garab ciyaaro لاعبka reer Argentine ee Lionel Messi. xidigani ayaana bari ugu dambeeyay warbaahinada wadankaasi Britain waxaba ay xusayeen inuu ka mid noqon karo ciyaartooyda si fudud kaga dhaqaaq karto stadiga kooxda kubadda cagta Manchester City maadaama tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola muhiimadiisu ay tahay in isbedel xoogan uu ku sameyn doono waqtiga kan xaadirka kadib khasaaradii xooganeed oo kala kulmay tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League oo ay markaa ka guuleysatay kooxda kubadda cagta Chelsea. hadda waxaa soo baxaya sheeko la yaab leh maadaama لاعبkani Ilkay Gundogan uu diyaar u yahay in markaa uu dhaqaaqo kooxda Barcelona haddii ay suurtagal noqoto inuu macsalaameeyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Everton Tottenham ayaa isha ku haysa xidiga Los Angeles Diego Rose. kooxaha kubadda cagta Everton iyo Tottenham ayaa dhamaantooda waxa ay isha la raacayaan ciyaaraanka sida weyn kaga dhax muuqanaya horyaalka MLS-ka dalkaasi Mareykanka ee Diego Rose. لاعبkani ayaa hadda kamid ah لاعبinta sida weyn kaga dhax muuqanaya mustaqbalka kooxda kubadda cagta Los Angeles ayaa la xusayaa in uu soo jiitay dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub sida ay daawacday jirada Talk Sports. 23 jirkan u dhashay wadankaasi Uruguay ayaana markaa soo jiidanaya indhaha qaar kamid ah kooxaha ugu tunkuweyn tartamada qaaradda Yurub. wacdaro xoogan ayuu ka muujinayaa horyaalka dalkaasi Mareykanka gaar ahaan kooxdiisa Los Angeles oo xidigani uu u yahay hormuudka ugu sareeya waqtiga kan xaadirka. لاعبkani Diego Rose ayaana markaa lagu tirinayaa inuu ka mid yahay da'yarta ugu hadalhaynta badan suuqa kala iibsiga xil ciyaareedkani waxaana لاعبkani lagu qiimeynayaa adduun dhan 10 milyan oo lacagta Euroga. isbedel waliba ciiraankani kooxdiisa Diego Rose ee Los Angeles waxa uu u dhaliyay
goolal gaaraya 56 gool 107 kulan uu u saftay tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Los Angeles sanadii 2017. labadani kooxood ee sida weyn ugu xifaaltamaya horyaalka wadankaasi Ingiriiska Everton iyo Tottenham ayaa dhamaantooda markaa xusaya inay ka guuleysan karaan kooxaha kale ee toddobaadkii ugu dambeeyay bal la xiriirinayay xidigani markaa lala barbardhigayo laacibka hore kooxda kubadda cagta Barcelona ee Luis Suarez. laacibkani Diego Rossi ayaana shakhsiyan aad u xiiseynaya inuu ka soo bedesho mustaqbalka horyaalka MLS-ka ee dalkaasi Mareykanka maadaama uu helayo dalabyo ku aadan Tottenham iyo Everton. Manchester United oo diiwaan gelisay xiisaha Coman. United ayaa diyaar u ah inay dalab ka gudbiso garabka kooxda Bayern Munich ee reer Faransa Coman oo 24 jir ah. haddii Dortmund ay si adkayso dalabka Sancho, Manchester United ayaa heshiis shakhsi ah la gaartay xiddiga reer England ee Jadon Sancho oo waqtigan isku diyaarinaya tartanka Euro 2020 ee dalkiisa kala qayb galayo. Red Devils ayaa isku dayi doonta inay keento 24 jirkan haddii ay ku guuldareysato inay la soo saxiixato Jadon Sancho ee ka tirsan kooxda Borussia Dortmund. Coman wuxuu jeclaan lahaa inuu sii dheereysto joogitaankiisa garoonka Allianz Arena, laakiin wakiilkiisa ayaa diyaar u ah inay dhageystaan dalabyada xagaagan. Jadon Sancho ayaa qirtay inuu ahaa wiil taageero u ah Chelsea halka ka hadlay wararka la xiriirinaya inuu dhaqaaqo Manchester United. Manchester United ayaa isku dayday kuna guuldareystay inay Sancho ka kaxayso Borussia Dortmund sanadkii hore iyadoo Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya inuu xoojiyo dooqiisa garabka midig. United ayaa markale u aqoonsatay 22 jirkan inuu yahay bartilmaameedkeeda koowaad ka hor inta uusan bixin suuqa kala iibsiga xagaagan. waxaana uu durbaba ka arkayaa dalabyo 67 milyan oo ganiya oo lagu soo diiday, laakiin haatan uu qirtay xiriirkiisa Chelsea. Barcelona ayaa Liverpool kula tartamaysa saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda AS Roma Lorenzo Pellegrini. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in Liverpool ay kula soo biirtay tartanka ku aadan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Roma ee Lorenzo Pellegrini. waxaana hadda soo baxaya sheeko ay soo saareen qaar ka mid ah guddiga fulinta ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyo qorshaha cusub ay ka damacsan tahay Barca suuqa kala iibsiga, waxaana ay doonayaan inay markaa xoojiyaan dalabyada ugu mudan imaanshaha istaadiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Nou Camp Stadium. jirada Monto Deportivo ayaa waxay cadeynaysaa in kooxda kubadda cagta Barcelona muhiimad gaar ah ay u tahay inay la soo wareegaan 24 jirkan ka dhex muuqanaya istaadiga kooxda kubadda cagta Roma Stadio Olimpico, waxaana ay doonayaan guud ahaan ciyaaryahankaasi in uusan u qalmin ka dhex muuqashada horyaalka sirada wadankaasi Talyaaniga. natiijo walba waxaa la xusayaa laacibkani sida weyn kaga dhex muuqanaya horyaalka dalka Talyaaniga inay fursad xoogan u tahay in dagaalkiisa uu ka dhex arkayo suuqa kala iibsiga. hadda waxay warbaahinada qaarba ay xusayaan in ciiraankani heshiiskiisa markaa lagu burburin karo adduun dhan 30 milyan oo geni. Barcelona waxay doonaysaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan wada hadal marka ay la yeeshaan maamulka kooxda kubadda cagta Roma si ay u soo gabagabayaan mustaqbalka ku aadan ciiraanka ka tirsan kooxda Roma ee Lorenzo Pellegrini. sidoo kale xidigani waxa aad u xiiseynaysa kooxda Atletico Madrid oo diyaar u ah in labada kooxood ee Barcelona iyo Liverpoolba guud ahaan bay kaga guulaysato dalabka ciyaaryahankaasi Pellegrini. Ancelotti ayaa yiri Marcelo uu sii joogi doona Real Madrid. Tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, Mr. Carlo Ancelotti ayaana markaa yiri Marcelo muhiimad gaar ayuu yahay waa uu ku sii sugnaan doona istaadiga kooxda kubadda cagta Real Madrid Santiago Bernabeu. ciiraankani Marcelo ayaa muddo dheer la soo jabhadeeyay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Real Madrid. xidigan u dhashay dalkaasi Brazil ayaana lagu xamanayay labadii maalin ugu dambeysay inuu diyaar u yahay u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga. laakiin tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa wax weyn ka bedelay riyadii ku aadanaa ciyaaryahankaasi Marcelo, waxaana uu xusay xidigaasi inuu sii joogi doono tan iyo sanadka 2022 garoonka kooxda kubadda cagta Real Madrid Santiago Bernabeu. laakiin Marcelo ayaa hadda la rumaysan yahay inay u noqon doonto sanadkiisii ugu dambeeyay uu ku sii sugnaan doono kooxda kubadda cagta Real Madrid. warbaahinada dalkaas Isbaanishka ayaa saaka qaarkood waxa ay daabacayaanba ma ku qanci doonaa hadalka Carlo Ancelotti ka soo yeeray xidig reer Brazil ee Marcelo, waxaana la xusayaa in Marcelo wili uu ka fikirayo mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta Real Madrid. laakiin macallinkiisa cusub Carlo Ancelotti waxa uu xusayaa in ciyaaryahankan Marcelo u qalmo in kooxda marka uu la sii joogo tan iyo sanadka 2022. Liverpool ayaa indhaha ku haysa Milinkovic-Savic si ay u buuxiso booska Wijnaldum.
Liverpool ayaa indhaha ku haysa Milinkovic Savic si ay u buuxiso booska Jorginho Wijnaldum kadib markii uu dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain. 26 jirkan ayaa lagu heli karaa lacag gaaraysa 60 milyan suuqa kala iibsiga xagaagan, inkastoo uu weli 3 sano ugu harsan yahay qandaraaskiisa Stadio Olympic. Milinkovic Savic ayaa dhaliyay 8 gool 9 kalena caawiye ka noqday kooxda Lazio ee ka ciyaarta Serie A 32 kulan oo u saftay xilli ciyaareedkii hore. Manchester United ayaa wada hadallo la furanaysa Paul Pogba. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhinaca kala sheegtay inay dib u bilaabi doonaan sheekada ku aadan wada hadalka saxiixa xidiga Paul Pogba. ciyaaryahankan u dhashay dalkaasi Faransiiska ee Paul Pogba ayaa guud ahaanba markaa la xusayaa inuu isku diyaarinayo inuu isaga dhaqaaqo Stadio Old Trafford ee kooxda Manchester United. hadalka ka dambeeya waxa la xusayaa in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer uu diyaarba u yahay guud ahaanba in uu wada xaajood xooggan la yeesho mustaqbalka ciyaaryahankan xilli ay aad Manchester u cirsanayso daayirka u dhashay wadankaasi Ingiriiska ee Jadon Sancho. laakiin laacibkan ayaa la rumaysan yahay Paul Pogba inuu aad u xiiseenayo inuu u dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu kooxda ku ciyaarto ee Real Madrid, taasi oo ay markaa u tahay mudnaantiisa koobaad, ayadoo haddii uu ku guuldareysto hamigiisa kooxda Real Madrid ay macquul noqon karto in Paul Pogba uu dib ugu laaban doono kooxdiisa hore ee Piankner Juventus ee ka dhisan horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Manchester United bariyihii ugu dambeeyay waxay ku mashquulsaneed dhowr ciyaartoy oo ay u arkaanba inay isbedel xooggan ka sameyn karaan mustaqbalka kooxda Manchester United, laakiin weli waxay ku jahwareersan yihiin xidigan reer France ee Paul Pogba, waxaana kaliya ay sugayaan in ciyaaryahankaasi ay ku qanciyaan bal in uu isdejiyo lagana dhaadhiciyo qaabkii uu ku sii joogi lahaa kooxda kubadda cagta Manchester United. Real Madrid ilaa iyo hadda wax dalaba maysan ka gudbinin Paul Pogba ka hor inta uusan ka dhaqaaqin hogaanka kooxda Real Madrid macallin Zinedine Zidane, laakiin hadda Paul Pogba ayaa u muuqanaya in xiriir hoosaada uu la leeyahay kooxdiisa hore ee Juventus. Lewandowski ayaa u furan inuu ka tago Bayern. waryaanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich Roberto Lewandowski ayaana guud ahaanba u furan waqtiga kan xaadirka inuu isaga dhaqaaqo kooxdiisa Bayern kadib markii laacibkan uu sheegay inuu aad u xiiseenayo ku biirista kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin Real waxay ka fiirsanaysaa xidigan u dhashay wadankaasi Poland Roberto Lewandowski haddii ay markaa ku guuldareystaan dalabkoodii ku aadanaa laacibka u dhashay wadankaasi Norway ee Haaland, kadib ayay Real Madrid u furnaan doontaaba inay dalab markaa ka gudbiso ciyaaryahankan Roberto Lewandowski sida markaa ay daawacday jirada ASA. xidigani u dhashay wadankaasi Poland Roberto Lewandowski ayaa waqti aad u wanaagsanba ku soo qaatay staadiyaha Allianz Arena ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich, waxaana laacibkani la xiriirinayay kooxaha kubadda cagta ee Paris Saint-Germain iyo Manchester United, laakiin wuxuu mudnaantiisa koowaad uu siiyay kooxda kubadda cagta Real Madrid, kaliya wuxuu diyaar u yahay inuu dhaqaaqo magaalada Madrid ee caasimada dalkaasi Isbaanishka. Roberto Lewandowski ayaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich wuxuu ku soo biiray bishii July 1 sanadii 2014, waxaana uu haystaa heshiis gaaraya tan iyo 30 bisha June ee sanadka 2023, laakiin hadda kooxdiisa Bayern Munich waxay xaqiijinaysaa in Roberto Lewandowski uu albaabada u ballaqan yahay kana dhaqaaq karo xil ciyaareedkan kooxdiisa haddii dalab rasmi ah laga soo gudbiyo ciyaaryahankaasi. inta ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha ee Bulsha Sports TV waxay idin soo gudbinaysaa aniga Aamin Ismaan, waxaa idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.